Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Muuqaalkeena maanta ida male waxaynu ku darsi doonaa inaynu ku barano qaabkii loo buuxbuuxinayay qaybta loo yaqaano surface page. Hore waxaan u soo aragnay about page-ka. Insha Allah maanta marka waxaan darsi doonaa surface page-ka inagoo ka soo muujinayna background-ka inagoo u samayn doona sidoo kale qoraalka naqliyeedka uga dhigi doona. Halkan waxaan ku muujin karnaa marka adeegyadii ama surface-yadii uu company-gaasi bixinayay. Haddii uu product bixinayana halka product baad ka dhigaysaa productyadii baad halkan iyagoo markaa sawirra ku soo muujin kartaa. Okay, intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay inagu surface baan qaadanaynaa. Surface-yadii baan markaa ku muujinaynaa inaga oo column saa isku barbar yaalla iyo row ahaan qaabkan u samayn doona. Sidoo kale ka soo muujinaynaa iconadii qoraalkana aynu ku hoos qori doono hadduu alla yidhi. Markaa muuqaalkeena maanta intaas ayaynu ku darsi doonaa. Seen intaa u samayno waxaan tegayaa file explorer-ka. Waxaan dooranayaa markaa folder-kii ay markii hore ku horay u kaydsanayeen. Halkaa waxaan soo gashanayaa markaa sawirkii aan background-ka u isticmaalay. Sawirka halkaas u yaala waa soo copy garaysanayaa. Waxaan leeyahay ku basti garaysanayaa markaa folder-kii ayaan gashanaya. Dan waxaan soo furan doonaa qaybta loo yaqaan VS Code-ka ayaan soo keenayaa. Wayahay VS Code-ka markaan soo kiciyo qaybtan waa iska xidhaya file baan tegayaa. Waxaan kasii dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay open file markaan ka doorto waxaan tegayaa markaa qaybtii uu website-kii ugu jiray halkan weeyaa. Waxaan soo gashanayaa marka about-ka iyo qaybta CSS taba control baan qabanayaa labadaba waa tigta saaraya dan open baan leeyahay marka labadiiba saas ay igu soo gelayaan. waa about-kii iyo waxa weeyaan qaybta loo yaqaanay style-kii CSS. intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa marka qayb cusub baan samaysan doonaa. Waxaan tegi doonaa file dan waxaan kasii dooran doonaa qaybta ay ku qoran tahay new file. Then waxaan halkaa ku qori doonaa qaybta cusub aan rabo surface ayaan ku qoran doonaa. Extension-ka waxaan siinayaa HTML then inter baan siinayaa marka wuxuu ii geyn doonaa qaybtii folder-ka. Okay, inter baan siinayaa ama create baad ku dhufanaysaa. intaa markaynu ka nimaadno waxaan u iman doonaa qaybtan about-ka ayaan control plus leeyahay. control plus C ayaan siinayaa marka waa copy garaysanaya. qaybta ayaan control plus B aan ku leeyahay ku basti garaysanaya. intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa qaybtan. waxaan u baahanahay markii halkan joogno yani qaybahan inaanay isbedelin laakiin inay isbedelaan. hadda tusaale qaybtan aan rabaa content-iga inaan soo bedelo oo sawirkan kasoo muujisto. marka waxaan u iman doonaa marka haddaan qaybta aan hore u joogay aan soo furto surface aan qaybtaas soo furo waxaa ii soo baxaysaa isla qaybtii about-ki. marka waxaan rabaa about-ka inaan soo bedelo oon sawirka noocaana ku soo bedelo. qaybahan hooseena hadduu alla idmo kuwaana aan iska soo saaro oon soo bedelo oon ku bedelo waxa weeye qaybaha halkan iga muuqda. Okay, si aynu taa u samayno waxaan tegayaa marka HTML-kii qaybta HTML-ka ah. waxaan leeyahay markaa halkan waxaan leenahay markaa waxaad nagu bixisaa container hero section-ka one igu dar kanna one igu dar. intaa markaan ka nimaadno waxaan u iman doonaa style-ka markaan u nimaadno waxaan leenahay halka ugu hooseysan tegi doonaa. intaas ugu hooseysa ayaan copy garaysanayaa ilaa iyo hero section-ka markaan copy garaysto halkan ayaa mar labaad ku basti garaysanaya. horena wuu igu jiray. intaa markaan sameeyo waxaan soo bedeli doonaa markaa hero section. hadduu marka hore sawirkaasi yahay sawirka waxaad ku bedeshaa sawirkeena soo gashana waxaa ku qoran img5 baa ku qoran extension-kiisuna waa gbg. okay, intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay halkaa sawirkii nagu bedel halkaasuu meel ka dhigi doonaa 5. marka automation isaga isku bedelaya dee sawirkiibu soo qaadanaya. halkana waxaan leenahay one baynu ku bedelaynaa 2 maadaama aynu classka aynu yeedhina halkan inoo yaallo si aanu kii hore mid isku mid aanu noqon inaynu jiro number sii raacin. si lamida containerna sidoo kale isagana number bayn sii raacinaynaa. intaas ayaan save garaynaynaa. halkii ayaan tegi doonaa waynu refresh garaynaynaa marka waa inuu u muuqdaa inuu isbedelo sawirkii kale sawirkii bedelo. marka waa ka sawirkiisu ka bedelay. about-kan qaybahan right-ka ayaan keeni doonaa. qaybtaasunba waxaan ku qori doonaa halkaasna right ula bixi doonaa. sidoo kale halkan waxaan leenahay right qayb walba markaa waxaad ka dhigi doontaa right ayaad ku qori doontaa si inugu qaato. qaybtan dhexdana waxaan leenahay isagana okay
qaybtan waxaan siinaya right ayaan siinaya intaas waxaan leeyahay save hagan tagi doonaa waa refresh gareyn doonaa marka waa inuu qaybta koonka uu kasoo muujiya saas uu noogu soo muujiyey intaas waxaa leenahay waa intaan u baahnayn inta markaan ka nimaadno waxaan iman doonaa inaynu qaybahan kale iska soo saaro oo qaybahan unoo baahnin qaybtiisan waxaynu ku bedeli doonaa hadduu aan laydno qaybahan markaas aynu taa usoo sameyno waxaan tegi doonaa VS Code baan tegi doonaa waxaan ka tegi doonaa qaybta HTML-ka halkaas sectionka halka ay ka bilaabato waa kii hore marka uma baahni sectionka oo dhan waa iska saaraya ilaa iyo sectionka ku xidhan yahay intaaba waa iska saaraya waxaan sameysanayaa markaas section cusub kaasoo nagu talagalay qoraalada cusub aan rabo inaan ku soo salaysto aan ku muujin karo marka section baan leeyahay classka koobaad aan rabo inaan sameysto waxaan u bixin doonaa qayb loo yaqaano rubber way classka koobaad rubber baan u bixin doonaa saan class u sameeyo dad baan qoranaya dad markaan qorto rubberkii ayaan halka gashanayaa enter ayaan siisan doonaa dhexdiisa waxaan leeyahay enter baan siin doonaa halkaa waxaan ula bixi doonaa magacii h1 baan h2 baan leeyahay tan enter baan leeyahay wuxuu ku saabsan yahay ama h1 badhe okay waa isku midka labada h1 baan siinaya si uu fartu aad uga horonaato waxaan leeyahay our surface safe baan leeyahay intaan markaan ka imaado waxaan sii raacin doonaa paragraph b yar baan furanayaa waxaan leeyahay loading 20 baan ka dhigi doonaa qoraalka si aan aad u badan isagana intaas ayaan leeyahay safe intaan markaan ka imaado qaybtaas ayaan leeyahay enter baan siin doonaa halkaa waxaan ka sameysan doonaa marka waxaa loo yaqaano contentiga iga soo muuqan marka waxaan leeyahay class iga samee classka waxaad tiraahdaa content box markaan siiyo enter baan siin doonaa classkaas uu sameyn doonaa classka waxaan haddana u baahanahay class kale oo waxa weeye loo yaqaano card ayaan sameysan doonaa enter baan leeyahay cardka waxaan leeyahay waxaad u sameysaa qayb loo yaqaano iconskii soo geli iconskiisina soo gelino ay baan qoranayaa ay markaan qorto halkaa waxaan ula bixi doonaa classkan ula bixi doonaa magac dari doonaa bx koobaad weeyahay intaana bx-ka u gaarin waa inaan horta marka hore soo tilmaamsadaa waxa weeye qaybihii icons marka kuwani waa value-yada iconada soo qaban doona ama iconada magacyadiisa waxaan booqan doonaa marka halkaa website loo yaqaano bogus icons si allah mustacaan kariim waxaan leeyahay bogus icon cdn intaas ayaan ku bari doonaa hadan waxay soo bixi doontaa qaybtaas ayay soo bixi doontaa qaybtaas markaa dooran doona ay ku barantahay usage markaad dooratid waxaa kusoo baxaya websitekan markaa kusoo baxo hoos baad u soconaysaa hoos masar ku socotid halka ay ku qoran tahay usage as a point ayaad waxaad kobgaraysan doontaa intaa value-ga intaas ayaan kobgaraysan doonaa control plus c ayaan leenahay waxaan tegi doonaa markaa qaybtii loo yaqaanay serviceka xagga ugu sarreysan tegi doonaa oo waxa weeye sheetka then waxa weeye titleka ayaan calaa enter baan siin doonaa halka linki ayaan ku oran doonaa enter baan leeyahay control plus v ayaa siisanaysaa markaa kaasi waa linki ahaan wuxuu kusoo qaadi doonaa qaybihii dhameeyey ayaan u baahnayn oo dhan okay intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay halka ay noo marisa ayaan kasii anbaqaadi doonaa bogoska ayaa waxaan sii raacin doonaa marka inaan mid kasta tilmaamsado shay kasta rabay ama qayb walba aan rabay inaan sii tilmaamsado halkaa markaa waxaan kasii anbaqaadi doonaa bx ayaan leeyahay bx markaan siiyo bx-ka waxaan leeyahay waxaa loo yaqaano bx-ka ayaan ku qoranayaa bx-ka markaan ku qorto haven ayaan raacin doonaa calaamadda haven waxaan leeyahay qaybta koobaad waxaad ka dhigtaa barchar ka dhig barchar markaad ka dhigtid waxaad haddana inagu sameysaa inuu layahay qaybtaasi alternative yahay ama alternative weeyay intaan markaan ka nimaadno waxaan sii raacin doonaa bogus sii raacin doonaa bx haven md intaas ayaa sii raacin doontaa intaan markaan sii raacino waxaynu sheegi doonaa iconkaasi yani magaca uu qaadan doono ama sumada uu brandka u noqon doono waxaan leenahay marka marketing la helo marketing xagga hoose marketing baan ku qaban doonaa leenahay marketing service marka waa icon yaroo tilmaamaya marketingkii inta waxaan leeyahay safe ayaan leeyahay waxaan raacin doonaa qoraal yar oo isaguna paragraph-ka waxaan leeyahay loading 15 oo kale
intaa ka dhig save isaga intaas ayaynu markaa waxaan leenahay baynu koob garaysanayna dhiftaas halkaasaan ka bilaabaya waxaan qaadan doonaa intaa waxa weeyaan ay ka bilaabanto dhifka isagana kaad ay ku qoranta intaas aan leeyahay control plus c halkan ayaan waxaan leeyahay inta control plus v tanaa halkaas waxaan leeyahay isagana waxaad sii siisaa halkaas sii siinaysa control plus v halkaas waxaan sii siin doonaa control plus v ilaa 6 qaybood baan ka samaysan doonaa control plus v ayaan wada leh waxaan u iman doonaa marka qaybtii sare markaan ka imaado qaybta ka bilaabi doonaa qaybtan labaad magacaan ula bixi doonaa waxa weeyaan waa mobile development allahi waa mobile app development okay development intaas markay nimaadno qaybtaan u iman doonaa isagana chartiskiisa waxaa soo wada bedeli doonaa mobile waxaan xusi doonaa laptop ayaan qori doonaa laptop okay intaa markaan ka imaado qaybta labaad ayaan u iman doonaa qaybta labaadna waxaan ka dhigi doonaa 24/7 call center wayay isagana iconkiisa intaasaan soo bedeli doonaa halkaa waxaan ku bedeli doonaa chartiska waxaan ku bedeli doonaa qayb loo yaqaano weliba qaybta bar marka bar line waa inuu soo baxaa line chart waa inuu soo baxaa line chartigaasaan ku bedeli doonaa qaybtan dambe hadda oo iman doonaa qaybtaana waxaan ku bedeli doonaa aan ula bixi doonaa social media marketing social media marketing isagana halkan waxaan siin doonaa isagana chartskaas ayaa meesha ka saari doonaa waxaan leeyahay tusaale waxaan leeyahay mail haven se isagana intaas ayaan siin doonaa intaa markaas altada meesha waa ka saari doonaa gunani intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa qaybta ugu dambeysa ma qaybtan waliba qayb baa kasii dambeysa qaybtaa waxaan ula bixi doonaa marka hore iconka waxaan soo siin doonaa bar chart baan buu deyn doonaa kiisaasaan u deyn doonaa waxaan leeyahay halkana waxaad u bixisaa corporate business okay intana markaa koobi garaysanaya inay qayb labaad iga samee qaybta labaad baan waxaan markaa u bixi doonaa qaybahan oo dhan waxaan ka dhigi doonaa paint ayaan ka dhigi doonaa dhinacan leeyahay qaybtaana waxaad ka dhigtaa creative consultants okay intaas ayaan siinayaa marka qaybtaas marka saas iga dhan tahay control process baan leeyahay wasaf gareynaya xaggan tegi doonaa hawiye marka waa refresh gareynaya kawada uu soo qabtaa qaybtan waa inuu saaraa uu nagu bedelaa waxa weeye qaybaha marka iconadii saas uu nagu sameeyay oo qaabka noocaas ayuu nagu sameeyay waxay rabnaa inaynu marka stylekii CSS-ta aynu isbarbariyaan iyo waxa weeyaan social ka dhigno waxaan iman doonaa marka stylekii CSS-ka markaynu nimaadno halkan waxaynu yeeri doonaa class-kii ugu horreeyay sameynay waxay u bixinay deena soo eegno raabar baynu okay halkan inagu jiraa raabar baynu bixinay raabar baan markaa soo qaadan doonaa control plus a ayaan leeyahay control plus c ayaan siinayaa marka qaybtana tegi doonaa halka ayaan class aan yeeli doonaa maadaama uu class yahay control plus v ayaan leeyahay inta baan siin doonaa waxaan leeyahay horta marka hore waxaad u samaysaa font primary-giisa waxaad inooga dhigtaa qaybta loo yaqaano railway fartaas inooga dhig enter c displayga u muuqanaya mid waxa weeyaan isbarbariya la inooga dhig okay qaybta labaad justify contentigana inoo noqdo mid kasoo muuqda dhanka dhexda qoraatay haddii waxa weeyaan qaybaha kale tahay haddii hayna itamiska tahayna itamiskuna isaguna inooga soo muuqdo centerka waxaan leenahay Galaxy decoration-kiisuna ha noqdo mid u samaysan column ahaan oo soo yaala sidoo kale waxaad noogu samaysaa background colorkana waxaad nooga dhigtaa
haddaan xigeen inooga dhig ama gray iyo haddaan isku jiro oo kale. waayahay intaas markuu inooga dhigo qaybtaas aysan uga tegi doonaa waxaan u bilaabi doonaa waxa weeyaan h1 waxaan leenahay rubber h1 intaasaan inter baan leeyahay. dee waxaan leeyahay fonti size-ka waxaad ka dhigtaa waxaad nooga dhigtaa 2 raan inooga dhig. waxaan leeyahay 3 raan. waxaan leenahay qaybta marginkiisa aad soo durkinaysaa hareeraha aad kasoo durkinaysaa qaybta ugu sareysa ha noqdo 25 pixel kasoo durki. qaybta labaad oo right-kana waxaad ka dhigtaa 0 ka dhig. qaybta markay ka nimaadna waxaan leenahay text qoraalada paragraph maadaama uu waxa weeye qoraal uu ku qoran yahay h1-ka waxaad nooga soo muujisaa text alignkiisu ha noqdo waxa weeye mid kasoo muuqda dhanka bartanka. marka mid kasta bartanka kasoo muuqdo font weight-ka ama waxa weeye boldness ka dhig mid waxa weeyaan u muuqda inuu waxa weeyaan uu madow xigeen u muuqda isagana 500 inooga dhig. intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay waxaan u iman doonaa qaybta danta soo refresh gareeyo in eegno ashiina qaybtaas center ku inoo keenay. waxaan u iman doonaa inaynu content-igi wax soo bedelo. leenahay content-igi ayaad soo qaadanaysaa haddii uu qoraalku si uu qoran yahay muhiima oo soo kobkaraysanaya markaas aanaba iga qaldamin. waayo deerkaasaan ku baasti garaysanaya haddana waxaan leeyahay basic waan soo furay. waayahay property-ga dhulka ama declaration koobaad aan samayn doonaa waxa weeyaan inaynu idhaahno horta marka hore qaabka u muuqanaya display-ga mid walba waxaad ka dhigtaa flexi ka dhig. waxa weeye sidoo kale waxa weeyaan justify-giisa waxaad kasoo muujisaa dhammaantoodba centerka. sidaa awgeed waxaan leenahay waxaad u samaysaa flexi raab baan ka dhigi doonaa. marka flexi raab markaynu idhaahno wuxuu inoo awoodi doonaa inuu waxa weeyaan inuu columniskaasi bridge u kala saaro waxa weeyaan laymaam u kala saaro. waayahay intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay wuriska mid kasta daba columnkaas wuriska uu yeelanaya ha noqdo ha noqoto pixel. intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay marginka xagga sare ee kasoo durkayaan isaguna qaybta topka weliba. qaybta topku 300 ay noo noqoto. marka intaas isoke way intaan markaan ka nimaadno waxaan leenahay card baan u yeeri doonaa. card waxaan leenahay mini height-kiisu ha noqdo 220 pixel. waxaan leenahay haddana wuriska uu yeelanayaana ha noqdo 320 pixel. sidoo kale baadhinkiisu ha noqdo baadhinkiisuna ha noqdo 300 oo pixel ha noqdo. border radius waaye qeybahan oo dhan horeen soo aragnay. border radius-kuna haynoo noqdo isaguna ilaa 5 pixel yaanu ka badnaanin ha soo xidhnaado. intaa markay ka dhimaadno display-giisuna kuwa ishor kale ha noqdo flexi baan ka dhigi doonaa. waayahay flexi baan ka dhigi doonaa isaguna waxa weeyaan centerka kasoo muuqdo. align itemkiisuna isaguna centerka kasoo muuqdo. flex decoration-kuna waxaan leenahay flexi decoration-kuna mid column u sameysa hoos yaalla waxay noo sameeya background-ka u dhaxeynayaana ha noqdo mid cadaan xigeena. waayahay hash baan ka horeysan doonaa. waaye qaybtaas markaan saa u sameyna waxaan leenahay marginta qaybta ugu horeysa waa topka 10 pixel ka dhig. qaybta ku xigtana waa right-ka waxaan siin doonaa 4 pixel oo kale baan siinaynaa. inta markaan ka nimaadno box shadow baynu sameynaynaa. box shadow baynu sameyn doonaa ama shadow kulamada sheegaya shadow baynu sameyn doonaa. shadowga markaanu sameyno shadowga property inoo noqdo. value waxaan ka dhigi doonaa marka
xilina qaybta koowaad horta okay focus shadow okay halkan oo error ku jira sax okay qaybtan focus shadow baan leenahay focus shadow waxaan leenahay qaybta koowaadi 0 pixel inoo noqoto way qaybta labaad in 35 pixel inoo noqoto iyaduna qaybta ku xigta 25 pixel inoo noqoto shadow inoo sameeyo oo hawto wuxuu weeyaan waxaan leenahay RGB markaa dhig kalarada RGB waxaa loo yaqaan RGB ee weliba oo qaybta albada ah fadlan ku dareena wayahay qaybta waxaan leenahay 0C qaybtan waxaan leenahay 0C qaybtan waxaan leenahay waxaad siisaa 0C albada haddana shadow waxaan leenahay 0.2 oo kale si uu noogu sameeyo shadow yar oo muuqda fresh aan intaas siiyo wayahay okay oo ka qaybaha inoo soo geliyey qaybtaas markaa inaga khaldan qaybtaas waa soo saxaynaa laakiin waxa weeyaan shadowyadii waa kuwa dhexda inoo geliyo qoraalkaasina fartiisa waa weyn tahay isagana waa soo yaryareynaynaa hawii halka iconkaas waa inaga maqan yahay qaybtana waxaan ku sameynaa markaa qaladku ku jira HTML waa ku noqonayaa okay qaybta waxaan ka saari doonaa alta bunoni alta qaybtan ugu dambeysana aynu eegno doonaa qaybta halku qaladku ka jira waxa weeyaan qaybta halka diffka ay ku qoran tahay diffkaasaynu markaa aynu ka saari doonaa kuwa kale diffku lama socdo sidaa awgeed diffkaas ayaa qaladku ku jira diffkaas ayaynu ka saari doonaa sidaa awgeed save aan leenahay markaan refresh garayno waxa weeyaan waa ka qaybtaas saas ku saxaas iconkina waa noo soo galay waxa weeyaan kii kalena positionkiisii waa intaan markaan ka nimaadno waxaan u iman doonaa qaybihii kale inaan iyagana aynu soo sameyno markaan ku dhufano inuu hoverkii noo soo baxo qaybaha kale way noo dhanyihiin waxaan tegi doonaa markaa stylekii CSS-kan tegi doonaa card baanu soo dhammaynay waxaan u iman doonaa card ID wayahay card ID ama card iconiska inaynu soo xusno wayahay card iconiska waxaan siin doonaa inaynu ka dhigno horta marginkiisa aynu kasoo durugno 20 pixel inaynu marginkiisa kasoo durugno sectionka uu ku jiro kalarkiisana inaynu soo siino waxa weeyaan qaybta loo yaqaano black okay intaan inaynu soo sameyno sidoo kale inaynu soo siino isla qaybta kaarka inaynu soo siino H1 H2 maadaama uu kaar walba H2 leeyahay ama uu heading leeyahay waxaan leenahay headingkaas heading button isaga waxaad siisaa 12 pixel baan siinaynaa ilaa inter sidoo kale waxaan siinaynaa font weightkiisuna ha noqdo mid uu eeg ball mid uu muuqdo ball okay isagana 400 oo ball ayaan ka dhigi doonaa wayay tagas alignkan waxaan siin doonaa doolaydna center baan leenahay kasoo muuji qoraal kasta oo markaa heading 2 inta markaan nimaadna hadda waxaan leenahay paragraph buu mid kasta leeyahay paragraphkana isagana sidoo kale waan soo xilsi doonaa waxaan leenahay card b baan furi doonaa markaa briskina waan furi doonaa waxaan leenahay horta qoraalada inooga soo muuqanaya kalarkooda ha inoo noqdo kuwa grey ha inoo noqdo sidoo kale waxa weeyaan meeshay kasoo muuqanayaan text alignkiisuna ha noqdo centerka ha noqoto intaa markay ka nimaadna waxaan leenahay kaarka hab u samey marka hufar marka lagu dhufto oo waxa weeyaan mouska saa loo dirsaamo ama kersalka yani midabka u bixinaya background ahaan waxaad inooga dhigtaa naabi midabka loo yaqaan naabi inooga dhig okay waxaan samaysan karnaa sidoo kale card cover baan leenahay iconada yaryaro inugu jira ama H1ka oo kale H2 baan leeyahay isaguna waxay noo sameeyo
waxaa loo yaqaanaa color inoo sameeyo marka la dul saaro colorkaasina yellow ha inoo noqdo. Okay, intaa markaan ka nimaadna waxaan leenahay qaybta ugu dambeysa over icons. qaybtaas intaas aynu nimaado bal inta aynu soo refresh garayno, refresh markaan siino haddaan qaybtan ku dhufto muxuu sameynaya markaa qoraalkii wuxuu noqday grey buu noqday, headingkiina wuxuu noqday huruud buu noqday. sidaa awgeed waxaan rabaa iconskaasina inay noqdaan yellow iyaguna marka lagu dhufto. marka halka waxaan ka samaysan doonaa kaarkii waxaan leeyahay hover u samee. hoverna waxaan tilmaami doonaa iconska ayaan ku tilmaamsan doonaa. sidaa awgeed waxaan leeyahay colorkooda waxaad ka dhigtaan marka cursor-ka dul saaro yellow inay noqdaan oo midabka yellowgu soo baxo. tan waxaan leeyahay refresh garee. marka saa loo dul saaro marka waa inuu noqdaa yellow, waa inuu noqdaa marka dhammaantood waxay wada noqdeen yellow boy. markaa surface qaabkaas ayaynu surfaceka usoo gelin karaa markaan rabno inaynu xogka soo muujino. qaabka noocaas ayaynu xogta uga soo muujin. marka insha allah idinkuna soo practical gareey waxay fahmi weydaan soo weydiiya.